Malaayiin qof ayaa ka cabanaya timo daadashada adduunka oo dhan, iyadoo ku dhawaad 7.4 milyan oo rag ay ku nool yihiin dalalka horumaray, kuwaas oo ay daadanayaan ama ay go'ayaan timahooda waqti kasta. Dadka qaar ayaa timahooda u daataan sababo la iska dhaxli karo oo lama huraan ah, laakiin qaar badan ayaa u daata sababo kala duwan dartood, kuwaas oo qaarkood laga yaabo inaysan ogeyn. Waxaynu sheegi doonaa 5 sababood oo keena timo go'ida oo ay dhici karto in dad badan ay moogan yihiin. Sigaar cabiddu waxay keentaa kansarka sambabada, cudurrada wadnaha iyo istaroogga ama shalalka. Sigaarku waxa kale oo uu sababaa timo daadashada. Sigaar cabiddu waxay dhaawacdaa DNA-da jirka. Tani waxay u dhimaysaa unugyada qaabilsan koritaanka timaha, laakiin taasi maaha habka keliya ee sigaar cabiddu ay u horseedi karto timo go'ida. Sigaarku waxa kale oo uu daciifiyaa habdhiska difaaca jirka, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu nugul cudurrada keena timo daadashada. Koofiyadaha la xidho. Xidhashada koofiyadaha waxay noqon kartaa qaab doorasho ama waxay noqon kartaa hab lagu qariyo timaha khafiifka ah. Si kastoo ahaataba, xidhashada koofiyadaha muddo aad u badan waxay sababi kartaa timo daadasho aan laga fikirin. Koofiyadaha ayaa madaxa qofka xoqi kara marar badan. Tani waxay sababi kartaa inay bararaan daloolada timuhu ay ka soo baxaan. Bararka joogtada ah ee daloolada timuhu ka soo baxaan waxay keeni karaan dhaawac joogto ah, kaas oo ay ka dhalan karto natiijo timo go'id ah. Timaha ku go'a xidhashada koofiyadaha waa mid si sahlan loo xallin karo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad iska ilaaliso inaad xidhato mar walba si aan halis ugu dhicin daloolada timuhu ay ka soo baxaan. Sonkorta. Daraasado ayaa muujiyay in dadka ay timuhu ka daadanayaan ay si joogto ah u cunaan cuntooyinka ay ku badan tahay sonkortu, gaar ahaan kuwa leh sonkorta warshadaysan. Tani waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay xaqiiqda ah in taasi ay fargeliso qaybsanka unugyada timaha. Sidoo kale, waxaa la ogaaday in insulinta badan ay kiciso habka timaha daadanaya. Sidaa darteed, ka fogaanshaha isticmaalka cuntooyinka sonkorta leh waxay u badan tahay inay horumariso xaaladda badqabka timaha iyo ka hortagga daadashadooda. Qalabka timaha, biraha lagu duubo iyo kuwa timaha lagu qalajiyo dhammaantood waxay kaa caawin karaan inaad hesho muuqaalkaad rabto. Laakiin haddii qalabkan kulul si xad dhaaf ah loo isticmaalo, waxay ku horseedi karaan in timahaagu ay si fudud daataan. Heerkulka qalabkan timaha oo aad u sarreeya waxay keeni karaan in timuhu ay gubtaan oo ay go'aan. Intaa waxaa dheer, haddii aad si joogto ah u isticmaashid qalabkan, tani waxay ka dhigi kartaa timo qalalan, waxaana kordhin kartaa fursada ay ku go'i karaan timuhu. Warwarku waa sababta ugu badan ee keenta timo daadashada, laakiin ma aha xaalad aad looga walaaco oo sababta daadashada timaha oo xad dhaaf ah. Waxaana ku xidhan tahay habka aad ula tacaalayso diiqada nafsi ahaaneed, taasoo go'aamisa inay saameyn doonto timahaaga. Haddii aad tahay qof degan oo aan aad uga warwarin xaaladaha warwarka leh, uma badna inay kugu keento timo go'id saayid ah.